dhalinyarada inta badan waxa ugu culus ku dhaca waxa kamid ah inuu noqdo imacada mataqaana sabab waxay tiraahdaa dameeridaan raaca mataqaana daan iska socda daanku waa dadkii biyaha dooranayay ayaa dameera ku soo baxaa iska daba galaa ma oga meesha ku socdaa laakiin way raacaan inaad cid walba waxay rabto iska raacda sax ma waa inaad xaqaa'iqda ogaataa tacaabirta qosol kale laga sheego ninkii Gandhi la oran jiray baan idin sheegaya Gandhi waa maqashan Soomaa India ninkii xornimadeeda ragii wax ka raadacaynaya Gandhi wuxuu ahaa nin dhaqankiisa ku adag laba go'o yar oo cadcad u xidhan jiray oo go'a hoose inta la duuduubo baa dabada la soo geliya xagga dambe dabagelis buu lahaa hatta waxay yiraahdaan markuu galbeedka Ingiriiska u imanay shirarkii la galayay ribuu soo kaxaysan jiray ridiisa caanaheedu maali jiray wuxuu daba macuni jiray Gandhi baa yimi bay yiraahdeen Gandhi baa markaa oday Ingiriis wuxuu ku yiri what is this isagoo sheegaya maradan dabada ugu jirtay dabageliska Gandhi waxay yiraahdaan kii gaalka ahaa isagana intuu taygiisa qabtay ayuu ku yiri what is this gaalkii wuxuu yiri waa leeyahay this is necktie يعني وابا قالوا انت روح لو necktie and this is back tie really يعني Gandhi wuxuu tilmaamaya idina halkan baa ku xidhan anna dabada ku xidhay buu leeyahay waa mara uun labadeedu waa qofka jirkiisu meel ka soo يعني wuxuu tilmaamaya necktie inuu ka fiicnay back tie macnaheedu maxay tahay culture-ku هقادن إن لقى كلجر قروح بدني إن أتقف صومالي ودقل صوماليات لاغي وأروح الغفام it's your back time أفهم تنبيلا هكفاني نما تاهي هكفاني قف مسلم أو صوماليات باقاي أو كلجر كيسية دقل كيسية دي